soo dhawaada daawadayaal waxaan rajaynaynaa fiicantiin insha allah intaa kadib weligaa ma maqashay qoom ilaahay intuu nabi usoo diray nabigoodina intay qabteen isagoo nool intay ceel dheer intay u qodeen ku riideen kadibna ku aaseen oo ku dulshameeyeen sidoo kale muxuu noqon karaa cadaabka dadkaas ilaahay marsiiyay sidoo kale anaga maxaan kala soo bixi karnaa cibra ahaan maadaama quraanka qisaska lagu soo wariyay ay tahay mid annaga nagu socoto oo ay tahay inaan ku cibra qaadano masiirka sidoo kale muxuu yahay dadka ilaahay aan caabudin waxaan ilaahay aan caabudin masiirkooda xaqiiqo nabada ayaan insha Allah taala uga sheekaysan doonaa mowduucan dadkaas waxaa laga horta hadaan ka bilowna cadaabkooda intaan iyagu mowduucooda iyo faahfaahintooda iyo waxay ahayeen galin waxaa la sameeyay markii iyagu ilaahay wacdigooda uu soo dagay oo ciqaabtooda ay soo degtay cirka ayaa waxaa la keenay hawada qaybta ka sareysa waxaa la keenay caadad madow oo mugdi ah oo sidoo kale dhagxaan ololaya tuuraya bedelkii roob ay dii laayeen dhagax bay tuurayaan waxaa lagu qiyaasaa caadka ama saxaabka naga sareeyo waxaa lagu qiyaasaa halkii xabo waxaa lagu qiyaasaa 1.1 pound inuu yahay culeysaan taasoo u dhiganta hadaan si la fahmi karo kugu sheego si aad u fahmi kartid 100 maroodi oo la isku daray culeyskooda ay la eg tahay halkii saxaab ama caad ee meel taagan aad aragto markay sidaan roobka culeysiyeen sidaas ay saynisyahaniintu sheegaan waa wax cilmi baaris lagu sameeyay oo la xaqiijiyay cirka ayaa marka saxaabkii loo soo dhigay uu mugdi oo madow sidoo kale dhulka dab ayaa looga shiday dabeel khatar badan oo halisa oo dabkaas ololisa oo saxaabka caawisana waa lagu shiday oo waa lagu siday waxa dhacday marka dadkaas waxay noqdeen sida dad inta qof miina lagu xiray lagu qarxiyo oo kala dhamaantood hilibkooda uu baaba'ay iyagoo dhanba way gubtanay tirtirmanay baaba'ay basbeelan marka arintaas waxay muujinaysaa marka qof walba ee ilaahay ka soo wax kala caabuda hadhawaata ama hasa dheeraatee inuu cadaab tulamida taas intu ka daran inay sugayso adduunkan cadaabkiisa waxa laga yaabaa marka lagu cadaabo inaad iska dhimato laakiin aakhiro cadaabkeeda lagama dhinto lagama gaboobo horeyaan mowduucii hore ugu sheegnay in haddii lay kuu sameeyay xitaa aadan dhiman karin inaad dhibato waa maslaxad xataa kama dhiman karta cadaabka ilaahay maalinta qiyaamaha marka waxaa la sheegaa nabigii loo diray in la dhihi jiray Xandala ibn Safwan culimada qaar inkastoo ay qaarkoodna ku khilaafaan dib male annagu waxaan ka rabnaa qisaska quraanka ku soo arooray rasuulan qad qasasnaahum alayka wa minhum man lam naqsus ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku yiri marka ambiyada ilaahay annaga waramaysanaay wixii ilaahay soo diray oo dhan daruuri ma magaciisa la sheego waa nabi ilaahay oo risaaladiisa gutay amaanadiisa ilaahay uu soo dhiibay gutay uu dadkiisa gaarsiiyay ama hala raaca ama yaa la raacina nabigii loo diray reer ras alweyna ayuu u soo diray ilaahay subhanahu wa ta'ala reer bani israa'iil nabigaas ahaa reer ras ayaa loo soo diray nabigaas si ay ilaahay keligii u caabudaan oo tawxiidka u gaarsiiyo waa taqaanaan nabiyada ilaahay boqolkiiba boqol fariintooda hal fariin bay ahayd waxay ahayd an ta'budu allaha wahdahu wa la tushrik bihi shay'an intaas bay ahayd fariinta qof walba oo nabi ah loo soo diray adduunyada fariinta u siday waxaa dhacday marka inay diideen hadii ay ku sameeyeen risaaladii iyo fariintii loo soo diray nabiga ilaahay oo way diiday inay war ka maqlaan waxaa dhacday marka nabiga ilaahay wuu inkaaray marka maadaama ay beeralay ahaayeen oo geedaha aad u jeclaayeen oo geedaha beeran jireen geedaha waaweyn ay aad beeran jireen oo miraha leh miraha dhalo geedihii buu ka inkaaray geedihii baa ka qalalay markay ka qalalay waxay aamineen inuu ninkan ma aysan aaminin in cadaab ilaahay u soo diray ay tahay oo nabiga ilaahay inkaaray oo ma aysan fahmin waxay u fahmeen ninkan inuu yahay saaxir iyaga sixraayo oo sharta iyo balaayada iyo geedaha inay qalaan inuu asaga qayb ka yahay isagoo nool ay soo qabteen way soo xirxirteen ceel weyn ay u qodeen oo mool oo aad u hoos oo markaas gud qoto dheer leh kadibna way ku rideen way ku dul shamiitayeen sidaas ayuu ku geeriyooday isagoo dhahaya rabbi qad daqa makani wa shiddat kurbati asagoo ilaahay oo dhahaya makaankaygan ciriiri ayuu ugu noqday shidada kurbadeedana way sii badan tahay isagoo dhahaya nabiga ilaahay sidaas ku geeriyooday reer ras ayaa la dhahaa dadkaas waxay sameeyeen 12 duulo ay deganaayeen 12kii duulo waxay u sameeyeen 12 ciidood markuu nabiga ilaahay geeriyooday kadib ciid walbana ay soconayso magaalada ugu weyn ay soconayso markaas dilay ku sameeyeen 12 maalmood halka ciid ay soconayso xaflado waaweyn iyo tumasho iyo xaaraan iyo fisqi iyo zino waa iska taqaanahay farxad iyo dabaaldegyo iyo fantasiyo waaweyn bay dhigtaan kadib markuu nabiga ilaahay geeriyooday iyagoo ku faraxsan hadii ay ku sameeyeen in markaasi ninkii dhibay uu ka dhintay
waxaa dhacday marka waxaa la wariyaa cali bin abi talib radiallahu canhu waxaa laga wariyaa inuu yidhi waxay caabudi jireen geed weyn oo sanbur ah ma ogi geedkan magaciisa wax laga wada aniga ma fahmin kuley waa baari kartaa internetka oo ay ula baxeen shahid rakt magac la dhaho ayay ula baxeen geedkaas geed weyn ayuuna ahaa wuxuuna ku duliyilay il burqata oo webigooda meesha u ka soo baxa ah number 1 webi mari jiray magaalooyinkan ayaa markaas ka soo bixi jiray ishaas burqanaysa geedkaas geed jirid weyn oo sal aad u weyn leh buu ahaa geedkaas baa ku duliyilay geedkana markaas waxaa la dhihi jiray Russian App ayay markaas magacaas oo la bixeen magacaas oo la dhihi jireen 12 tuulo ay deganaayeen lahaayeen ama degmo ama magaalo webi ayaa mari jiray webigaas ina ras la dhihi jiray sababta marka magaca loogu bixiyay asxaab ras waxa waaye webigaas dartiis webigaas magaalooyinka mari jiray darteed ayuu magacaas ku qaatay marka waxay sameeyeen geedkii waxay yiraahdeen lama taaban karo waa in la ixtiraamo biyaha webigan lama cabi karo waa xaraan hadii la maadaama ilaahigeena uu waraabiyo si iyagu arkayeen oo ilaahigooda uu waraabinay qofkii lagu arka asaga oo geedkaas taabanaya biyahaas cabaaya ama meelahaas wax ka raadinaya hadii la arkana in lagu ciqaabi doono oo ay dil tahay ayayna markaasi markaas go'aamiyeen oo ay heshiis ku gaareen waxaa dhacday marka qisaska ilaahay subxaanahu wa tacaala sin ma la yacni uma sheego hadda aragtay quraanka qisas ku soo arooray sideedaba cibra waa tusaale waa waxaa la rabaa inaan ku cibra qaadano oo ku tusaale qaadano oo aan fahamno meesha u dambeyn doonto masiirka ay mari doonaan inta ilaahay ka sokoomahay wax kala caabuda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo ka hadlayo wuxuu yiri wa'aadan wa thamuuda wa asxaabu ar-ras wa qurunan bayna dhalika kathira في سورة الفرقان آيات 68 أينا مركز كجرتها سورة الفرقان آيات 68 أي كته مركز الرس أما قوم الرس ما دام هي ضد ظلم بدن وعادي استي ظلم ما لا يعني وحد على مركز شيطان بأسود دقي ما دام النبي إلهي الدلين يلبي طبعا حفلات سميان أو من لبي طبعا صعون يسوي سميان شيطان بأسود دقي سي ومركز وقفرحه ولقب قاته wuxuu ku yiri waan ku faraxsanahay hadii ay ku sameeyeen 100% raalli baan idin kahay waan ku faraxsanahay waxaad sameeyeen oo ah dilkii nabiga ilaahay iyo joogteynta sharta iyo shaydaanka iyo xumahiisa marka waxaad moodaa macnaha waxa la jiray adoomo ilaahay u doortay la jiray waa adooman shaydaan u doortay waxay si bilaabeen musiga waxay caan ku ahayeen musiga iyo dansinka iyo hadii ay ku ciyaarta iyo tumashada iyo khamri cabka bay macruuf ku ahayeen bay si wadani si joogtayeen maadaama shaydaan uu soo dagay oo uu markaas ugu bishaareeyay in markaas raalli uu ka yahay waxa dhacday marka sidaas buu marka ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin baalmaha kamid ah cadaabka ugu soo diray aan ka soo waranay kuma laabanayno ayuu ilaahay ugu soo diray sidaas ayaan lagu baabiyay kulligood waxaa kaloo jirta aayad quraan ah oo sidoo kale sheegaysa وفي سورة القاف كجرت وكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود في سورة القاف آيات الله يتبناد واي مركب قرآن كسيكو كوبان أيوغا هدلي نبي إلهي قرآن كمشيغين لو سو دري لكن نبي إلهي وقوليستي ورسالة دي سقطي أيوها أما مركز الصحابة راعدها ياش أما يوسن يلم ودنبين نوي بشيدي إلهي درتي وقيريودي ساقا وحقي قدنا إياغا markaas aasay waliba isagoo nool marka fursadii loo soo bandhigay ilaahay u soo bandhigay inay ilaahay kaliya caabudaan way ka faa'iideysan waayeen halagaas iyo masiirkaas ayaan u dambeysay marka qof walba waxaan kula dardaarmayaa naftiina inay ilaahay ka cabsataan ilaahay caabudaan hadii kale masiirkaas meel xun ba qof walba u dambaaba u dambeynayso oo markaas meel xun ayaa markaas qofkaas u dambeyn doonto qof alla qofkii ilaahay caabudi waaye wax kala caabuda wuxuu rabaa intaasaan ku soo koobaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.